madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed ducaale geelle xaaf ayaa shir jiraa'id ku qabtay magaalada dhuusamareeb isagoo ka hadlay hadalkii dhawaan ka soo yeeray wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed ducaale geelle xaaf ayaa xadgudub ku tilmaamay hadalkii ka soo yeeray dhawaan wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya kaasoo looga hadlayay doorashada galmudug iyo muddo-xileedka uu ku eegyahay madaxweynaha haatan xilka haya madaxweynaha galmudug mudane axmed ducaale geelle xaaf ayaa dib ugu laabtay magaalada dhuusamareeb kadib safar uu ugu maqnaa dalka dibadiisa ayaa shir jiraa'id uga hadlayo arrimaha dhinacyo kala duwan taabanaya isagoo ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in ay faragelin buuxda ay ku hayso maamulkaasi markaan galo safarkaygu wuxuu ahaa safar guul ah wax badan ayaa noo soo qabsoomay hay'adihii dawliga ahaa iyo wakiilada dowladaha safaaradihii iyo intii aan soo aragnay guul aad iyo aad u badan ayaanu kala soo kulannay waxaan soo hubinay waxyaalo badan oo naga xayirnaa oo mashaariicdii iyo wixii naga xayirnaa oo awal ay caqabada ku ahayd dowladda federaalka in aan gaarnay in hadda toos naloo siiyo markii la hubiyey in dowladda federaalka caqabad ku tahay mashaariicda aad iyo aad ayaan uga xumahay in warqadii soo baxday u muuqatay in galmudug state cusub tahay state cusub ma aha galmudug sharci bay leedahay dastuur bay leedahay nidaam bay leedahay baarlamaan bay leedahay madax bay leedahay caasimadeedii bay joogtaa in lagu xadgudbo oo la yidhaahdo haddaa doorasho loo qaban hayaa anugu meelay ku taal ma arag aad iyo aad baan uga xunahay waxaan u sheegaynaa ummadda Soomaaliyeed intii wax garanaysa reer galmudug khaasatan in ay arrintaas si badda dheer uga fiirsadaan una ogaadaan in ay tahay xadgudub sharci darro ah haddii Soomaalida waxay oran jirtay haddii hasha weyn durduriso aragna maxaad moodaa haddii madaxdii qaranka oo federaalku ay sharciga ku tumanayaan aad iyo aad baan uga xumahay in maaragtay talo anagu see yeeli doonaa anagu aan ka roonaano sharciga iyo nidaamka ilaa shanaad loo baahan yahay